gudoomiyaha warsiyaadka xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Jaamaciye wafdi balan gudoomiyaha ururka xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Jaamac ayaa ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay taageerayaasha kulankan isugu soo baxay kana warramay ujeedada safarada ay ku soo mareen deegaanada hoos yimaada saaxil togdheer iyo daad madheedh ayna ahayd mid loo kuurgelaya xaaladda iyo shaqada xafiisyada ururka xaqsoor ku leeyahay deegaamadaasi isagoo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac sheegay in muhiimadda weyn ay ugu fadhido in bulshada deegaanka Oodweyne ay kala qayb galeen xuska maalinta shahaadada Islaam 17ka bishan Oktoobar oo magaaladaasi lagu qabtay gudoomiye ku-xigeenka ururka xaqsoor Cali Sandulle ayaa isaguna iftiimiyay xafiisyada gobolada oo ay ku leeyihiin hawsha iyo hawlaha ururka xaqsoor isagoo ku amaanay taageerayaasha ururkaasi iyo hawlwadeenada hawlaha ay ka qabtaan xafiisyadaasi iyo soo saaridda iyo kamida dhalinta hadafka iyo himilada xaqsoor gabagabadii kulankan soo dhaweynta loo sameeyay hoggaanka sare ee ururka xaqsoor ayaa waxaa hadallo mahadnaqa iyo gubaba ka soo jeediyay madashaasi taageerayaasha gobolka Maroodijeex ee ururka xaqsoor iyo madaxda iyo mas'uuliyiin tiro badan oo kulankaasi ka soo qayb galay